لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى ما تيسكلي نعم كيس فرع بدن ما أنت ومال الجمعة بشر رمضان سديد أي تهي ما شاء الله وخير خير لقدر الجمعة دي يا رمضان كي بشي وخير بنا بلها يا مالن كي وخير بنا مالمها إلهي سبحانه وتعالى خير كذا هاي نسيو waxaan jeclahay maanta inaan isu gudbiyo waxyaro kooban oo 5 daqiiqo ku saabsan ahkaamtii soomka insha Allah taala soomku marka hore waa rukn min arkaan islaam waa tiir kamid ah tiirasha islaamka macnihiisuna wuxuu yahay qofku inuu ka soomo waxyaabihii loogu talagalay inuu ka soomo culimadu waxay ku taariifiyaan ama lagu qeexaa in la yiraahdo waa al-imsaaku 'an al-muftiraati min tuluu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams xilliga فجرka salaada subax aadaankeeda laga bilaabo ilaa iyo gobolka intuu ka dhacay ama qorraxda ka dhacaysa inta inuu qofku ka haysto wixii loogu talagalay inuu ka haysto soonka burin laha ama jabin laha وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل بله الله سبحانه وتعالى soomka saa loo afhaystay axkaamta qofka laga doonayo inuu ilaaliyo axkaamta waxaa ugu muhiimsan qofku waxyaabaha soomka ka dhibaataynaya ama ka jabinaya inuu iska ilaasho laba qaybood u qaybsamaan wax soomkii tirtiraya oo maartay burinaya iyo wax soomkii dhaawacaya waxyaabaha soomka burinaya ayaa ugu muhiimsan waxaana ugu horeeya al-aklu wa shurbu fi nahari ramadaan camdan cunitaan iyo cabitaan qofku inuu sameeyo maalinkii bisha ramadaan gudaheeda xilliga aan sheegnay oo fajrka salaada subax ilaa ay ka dhacaysa inta u dhaxaysa وأن عنتانكي يعبتاني قفكو كديرادو إلهي با سبحانه وتعالى أيضا نرني أيو كشيغي حلقة وبلاوني إمساقو إي حلقة وطماني سيدا أوكله رحمة إلهي وحاكم إذا عمدي إن الراعيي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام والراعيي قفكو هدي سيئن وركعه وحوعنه هلمانا إن لو ضافها يوصوم كيسو سيوضناي وحالبا برنا يا قفك صومكي كبرنا يا الجماع في نهار رمضان inuu galmo u sameeyo maalinka ramadaanka inuu sameeyo وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وحالذين بنيو الله سبحانه وتعالى الذين حلاليي جماعي أي هبين كرمضان كالذين بنيي تاسو مارتي مفهوم مخالفون ويهي مالك كذي إنا لغو أقريب والله هدو قفكو لي ما دو كفارة أدق أيا كد على نيسا marka waa inuu qofku uu ka dheeraado galmo wax la yiraahdo uu ka dheeraado inta uu soomayahay ee maalinimo lagu jiro saddex waxa noqonaya qofku fi nahari ramadaan inuu macnaha uu iska ilaasho oo uu ku dadaalo inaysan ka imaanin manida ama maxaan ku raday ilmaha laga abuuro ilmaha waxyaabaha laga abuuro waa inuu iska ilaasho mid waxa ku timaadaa galmada midna waxa ku timaadaa qofku inuu maskaxdiisa iyo ma xubnihiisa uu taabto oo sida ay kaga timaado iyadana waa camdi hadduu isaga keeno khurujul mani mid ay ka soo baxdo isagana soomkiisi waa u burayaa ama haddii ay noom ay kaga timaado isagoo hurda ama si kale ay kaga soo baxdo shahwo ahayn taas dhibaato male soomkiisu wadanaya laakiin wuu qabaysanaya xilligii ay ka timaado ayuu qabaysanaya waxaa kaloo waxyaabaha soomka burinaya alqay'u camdan qofku inuu isqaaciyo si ula kaclan uu isaga keeno ayaa ka burinaya soomkiisa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay qofka uu soo dhaafo muqaacadu ay soo dhaafto man nabi sallallahu alayhi wasallam man dara'ahu qay'u falaysa alayhi qada wa man istaqa'a falyaqdi qofka uu soo dhaafo muqaaca ay soo dhaafto wax qada lagu ma leh ama qofka isagu iska keena si camdi iyo la kaca soomka maalinka uu ka buraya una soo qadaynaya waxyaabaha soomka buriya waxaa kamid ahaa irbadahan iyo falembooyinka iyo daawooyinka cuntada iyo cabitaanka u dhigmo qofku inuu qaato taana waxa laga fahmayaa wax cunitaanka iyo cabitaanka u dhigmayaysan ahaanba xubno kale laga qaatay inay macnaha ay burinayaan waa masala casri ah oo maartay casriyan dama timid way xilligii nabiga aan jiray calayhi salaatu wasalaam soomka waxyaaba buriya waxaa kamid ah dumarka dhiiga ku yimaada oo xaydka leeyahay ama dhalmada ayaa isna burinaya haddii uu maalinkii uu ku yimaado gabadhu marka haddii labada ay ku yimaadaan labada dhiig oo dumarka khaaska ku ah macnaheedu waxaa weeye soomkeedii in uu macnaha uu ka burinayo weeyaan waxyaabahaas waxyaabaha ugu waaweyn ugu culus soomka qofka burinaya oo ka dhibaataynaya wey waxaa jira waxyaaba nusqaaminaya ajirkii sida xantii iyo beentii iyo laqwigii iyo dagaalkii iyo waxyaabaha lamidka hadal xumada kuwaana dhaawac ay u geysanayaan ajirkiiba ka nusqaaminayaan
labada qayboodba qofku marka inuu ka dheeraado kuwa sii daran oo soonka burinaya oo aada uga sii dheeraado uusan la imanin kuwa kale oo dhaawacayana uu ka dheeraado maadaama qofku uu ku jiro cibaado wixii dhammaystiraya ama taam yeelaya inuu ku dadaalo taasaa laga doonayaa ilahi waxaa weydiisanayaa subxaana wa tacaala in uu soomkeenna ajirkiisa ina siiyo oo inoo xifdiyo inagana inaga dhiga kuwa soomkooda ilaashado jazakum allah khayr baarak allah fiikum sal allah wasalam wbarak calaa nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi wasalam